ku soo dhawaada qisadii jacayl ee la magac baxday ilmadii xaaska qaybtii shanaad waxaanay nila socodsiin doonaa aniga oo ah Nadiir Buux. nimco oo ay oohini indhaheega ka qulqulayso isla mar ahaantaana xamilila dibka soo gaaray jacaylkeyga Cabdiqani ayaa waxa ay Cabdiqani ku dhahday waan ku jecelahay ma ogtahay intaad iga maqnayd in adduunyadu igu yaraatay la'aanta aan ahaa maqna jooga oo Cabdiqani la'aanta ani nololi iima jirto ogow haddii aad mar uun cidlayso inaan dhimanayo. Cabdiqani ayaa isayn kari waayay oo la ooya farxadda jacaylkiisan nimco awgeed waxaanu nimco ku dhahay ma ogtahay markaad idul imatay in aan ilaawo dhibkii iyo dhaawacyadii iga soo gaaray shilkii. waxa uu ku dhahay isaga oo hadalkiisa sii wata digtoorka iyo dadku waxa ay arki karaan kaliya dhaawacyadayda guud ee laga arki karo muuqaalkayga laakiin ma garan karaan holaca qalbigayga ka shidna. Qani oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku yiri nimco ogow waxaa tahay noloshayda waxaa tahay dhaqdhaqaaqa wadnahayga waxaa tahay nuurka indhahayga waan ku jeclahay nimco la'aanta nolol ma jirto. sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro birto mirihi ka baxay ubaxu kala noocyaha egmada kugu sii haya kalgacalkood daawada. nimco oo farxad iyo qushuuc jacayl ka muuqdo wajigeeda ayaa waxa ay ku direen celisay iyaduna hore loo sheegayo kumbay gabar shawrisa kumbay kala aqal gasha kurtood raga sharafta badan adaan kala soo baxo aniga kaliga ku jecel. nimco iyo Cabdiqani oo waa u beriyay oo ku wada jira farxad ayaa waxa u soo galay faamilkii Cabdiqani iyo waxayna u sheegeen in digtoorkii uu u sheegay xaaladda caafimaad ee Cabdiqani isla haddana ay wanaagsan tahay ayna iska bixi karaan. nimco ayaa ku farxday arrinka loo sheegay waxaana loo qaaday xagga iyo xaafadii Cabdiqani iyo Cabdiqani iyo nimco oo sii wata farxadoodii jacayl ayaa waxaa Cabdiqani si kedis ah ugu yeedhay gabadh ay walaaliyihiin una sheegtay war uu aad uga farxay walaalkeed Cabdiqani oo ahaa biri waxaan kugu doonaynaa insha Allah nimco waana in aad u sheegtaa nimco inaad biri meherkiinu dhacayo. waxaana arrinkaas ugu bishaareeyay faamilkii Cabdiqani. kadib waxaa nimco u soo galay Cabdiqani oo indhihiisa aad moodo qasabad biyo ah oo la furay gabigiisuna isbedelay ayaa inta ay naxday nimco ku dhagtay kuna dhahday Cabdiqani maxaa ku helay maxaa kugu dhacay wax ii sheeg Cabdiqani waan ku baryayaa. Cabdiqani oo ay farxadii dhaamisay isla mar ahaantaana garan la meel uu uga bilaabo hawsha jeejeesanayana ayaa waxa ay nimco ku dhahday ii sheeg xabiibi waxa ku helay maxaa kugu dhacay ee ku bedelay. Cabdiqani oo ka adkaysan waayay hadallada nimco ay weydiinayso ayaa waxa uu ku dhahay biri waa meherkeeni waxaana ii sheegay walaashay waxaana galabta loo tagayaa qoyskiini waxaana la ooyayaa farxadda iga tan badantay awgeed buu ku jawaabay Cabdiqani. qofku waa qofkiisa qofkaygu waa qaali qurbo waa qudheede qudhiisu igu qanacsan hayga muuqasarina dooqu qof sariixul. waa qisadii jacayl ee la magac baxday ilmadii xaaska. qisadan oo goosgoos ama baarti ah waxaad kala socon kartaa channelkeena Nadiir Buux maalin kasta. ku xidhnow mar walba iyo mar kastaba channelkeena Nadiir Buux. fadlan haddaad YouTube channel ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada barnaamijyada halkan aan soo gelino.